وقيبتي كواد دلير اسكو دوغو بيري عيدمada qalabka sida gaar ahaan ciidanka darawiishta booliska kusimaha taliyaha ciidanka booliska General Mukhtar Xasan Afrax ayaa sheegay in ciidamadan ay yihiin dafcadii koobaad ee ciidanka darawiishta kuwaas oo isku u doortay in ka mid noqdaan ciidamada kadib baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda 18 bishii Oktoobar mudana madaxweyne waxa meeshan maanta gadaashada fadhiya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku soo biiray ciidamada qalabka sida oo ah mutadawacnimo markii hore kuwa soo xilqaamay iyaga oo ka duulaya hadalkaadii ahaa baaqayga ah in dalka la difaaco oo mutadawiciin Soomaaliyeed oo dalka u dhintay in la helo runtii waa dad yar waa dhalinyaro sida hadda ka muuqata annagana waxaan buuxin doonaa tababarka ay u baahnaayeen sidaan u ballan qaadnay waxaan diyaar u nahay inta ciidanka booliska Soomaaliyeed ay yaqaanaan in la baro in lagu dadaalo inay noqdaan ciidanka qalabka sida kuwa buuxin kara kaalinta looga baahnaa aqoon ahaan tababarkoodana diyaar u nahay gudoomiyaha guddiga taakulantii waxay gelinta ciidamada Ahmed Jaamac ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay dhistaan ciidamadooda si dalku uga baxo dhibaatada muddo uu ku soo jiray dawladii haday jirto iyada ciidamada qorata iyada ciidamada waxay u baahan yihiin kafaala qaada laakiin dawladeena hadda jirta cashuur ay ku kafaala qaado baahida ciidamadeeda ma jirto kolkaad ku tashigu waxa weeye in Soomaalida ay isku tashato isku laabato isbaarto oo kafaala qaado ciidamadeeda inay ka hawl geliso waxay u baahan yihiin qalab ha ahaato hub ha ahaato maxay nolol kale ha ahaato labis ha ahaato waxaas oo dhan waxa layna ka doonayaa inaku in isku tashan Sheekh Ali Wajiis oo kamid isla guddigan taakuleynta ciidamada oo la hadlayay dhalinyaradan ku soo biiray ciidamada ee maanta loo furay tababarka ayaa sheegay in mujaahidka saxda uu yahay ciidanka Soomaaliyeed ee difaacaya dalkooda waxaana aad u dhalilay habdhaqanka shabaab ee ku aadan dhanka diinta maanta ayaan joognaa inaan u noqono meeshan 8 iyo 7 aan joognay haddaan maanta isku duubni iyo qalbi midaysan iyo gacan midaysan aan hoggaankeena aan daba istaagno on dalkeena inaan dhisano aan go'aansanana waa hubnaa inaan 70 iyo 5 iyo 4 iyo 6 aan gaari doono insha Allah meeshan marayno nimankaas ayaga ah ee khawaarijta ah dilkooda in la dilo iyo adiga inay ku dilaan labadaba janna lagu galaa shahaadadaas nabi maxamed bixiye sallallahu alayhi wasallam maanta waa yawmun lahu ma ba'dahu arabtu hijra waa maalin maalmaha ka dambeeya oo dhan fiirsanaysa waayo maanta aan joogno waayo waa in marxaladda kala guurka aan u dhaqaajinaa tahriir madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u mahad celiyay dhalinyarada haweenka dalka iyo culimadiinka uu sheegay in ka jawaabeen baaqii u jeediyay weerarkii 14 Oktoobar kadib baaqaas aan diray waxaan u diray culimadeena waxaan u diray hooyooyinka iyo gabdhaheena Soomaaliyeed waxaan u diray dhalinyarada saddexdaba maanta waxaan sheegayaa inaad ka jawaabteen ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay hawsha aad bilowdeen oo u istaagteen inay noogu dhamaato guul degdeg ah hadduu ilaahay yiraahdo culimadeenu waa ku mahadsan yihiin hawsha ay qabteen inay dadka ku baraarujinayaan qof walba oo Soomaali inuu istaago oo diintiisa difaacdo maxaa yeelay dadkan waa ognahay inaysan ahayn dad Islaam ah dadkaasi waxay u dagaalayaan inaysan ahayn diin inay yihiin mujrimiin inay yihiin dad aan naxaynin inay yihiin dadkooda loo soo diray oo ay wataan qolooyin yar oo ajnabi ah oo ku noolaan waayay wadamadoodii haddii ay dhab tahay ay rabaan janno inay galaan may wadamadooda ka bilaabaan jannada ka galaan ma jannada halkay ka dhowdahay sidoo kale madaxweynaha ayaa u muujiyay dhalinyaradan ciidanka darawiishta ku biiraya in dawladda uu hogaamiyo ay sii doonto taageero kasta ay u baahan yihiin si dalka looga xoreeyo kooxaha nabadda u diidan waxaa tihiin dufcadii ugu horeysay oo ka jawaabtay oo diyaar u ah inay naftooda siiyaan dalkooda inay u dhintaan diintooda inay difaacdaan dadkooda waxaa tihiin runtii mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa tihiin wadan walba oo dib gala wadan walba oo la soo gudboonaada xaaladahan oo kale mar walba wuxuu ku noqdaa dhalinyaradiisa waxa badbaadiyay dhalinyaradiisa haddana waxaan hubaa ilaahay inuu idin garab taagan yahay ilaahay inuu gacan idin siinaayo ilaahay inuu idin la jiro inaad xaq ku dagaalaysaan oo aad ka adkaanaysaan qolooyinkan khawaarijta ah oo aan ilaahay ka baqaynin Soomaaliland aanu naxayn annagu diyaar waxaan idin la nahay wax alla wixii aad u baahan tihiin wax alla wixii aan ku guulaysan karno
wax alla waddankan aan nabad uga dhigi karno wax alla waddankan aan horumar ku gelin karno inaan sameeyno waa naga go'an tahay idinkana waxaan hubaa inay idinka go'an tahay inaad dalkan aad naftiina u hurtaan markii ay dhacday masiibadii 14 Oktoobar oo dad badan ay ku weysay Soomaaliya waxay abuurtay in dhalinyaradan faraha badan ee isugu jira wiilal iyo gabdho ay iskood halkan oo ah dugsiga tababarka ee General Kaahiye u yimaadaan si ay uga mid noqdaan ciidamada kala duwan ee dalka gaar ahaan ciidankan booliska Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka dugsiga tababarka ee General Kaahiye